maanta maxaa ka cusub Soomaaliya ayaan halkan kugula wadaagi doonaa ku soo dhawaada beejkigan garoonka diyaaradihii heer caalami ee internationalka ay ku soo degayeen maanta waa ay joojiyeen duulimaadada halkaasi sababa amni aawadeeda kadib markii hoobiyaal ay ku soo dhaceen garoonka diyaaradaha iyo xaydaabka xalane waxaana la sheegay in hoobiyaashaasi meelo khatar ay gaareen faahfaahinteeda waa idin hayaa sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa cadeeyay in uu booqanayo magaalada Laascaanood hadda uu ka jiro maamulka SCC Qaatumo qodobadaasi oo faahfaahin ayaa idin hayaa dhanka kalena waxaanu isla eegi doonaa nin oday ah oo xanuunsan oo bur afka uga taalo oo dhalinyaro Soomaaliyeed u istaageen inay caawiyaan oo iska diiday in qalliinkaasi iyo caawintaasi loo sameeyo haddaba sababtu maxay tahay caafimaadkiisa ku diiday barnaamijka ayaanu ku faahfaahin doonaa ee ku soo dhawaada sheekadeenan ee ku soo dhawaada warkeena oo faahfaahsan aynu ku bilaabano garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho diyaaradda Turkish Airways iyo sidoo kale diyaaradda Egypt oo ka soo degi lahaa maanta waa ay joojiyeen duulimaadada halkaasi sababa amni aawadeeda kadib markii maanta ay ku soo dhaceen xaydaabka garoonka hoobiyaal ay argagixisadu tuureen hoobiyaashan ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhaceen dhabaha garoonka ee ay ku ordaan diyaaraduhu marka ay soo degayaan ama ay duulayaan arrintan oo muujisay signal khatar ah oo arrimo amni ah diyaaradda Turkish Airways oo Muqdisho soo gaari lahayd oo Djibouti maraysay ayaa goortii ay soo duuli rabtay waxa ay joojisay duulimaadkaasi dhammaan rakaabkii saarana halkaasi ay dhigtay waana uga tagtay waxaa ka mid ah rakaabka ay meeshaas uga tagtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ninka lagu magacaabo Amiir oo asagu tamashleen iyo farxadeen iyo waqti ku soo qaadanaya dalka dibadiisa haatana magaalada caasimadda ahayd oo gudoomiyaha ka ahay arrimo amni aawadeed diyaaradii ay waday isaga ay u soo caga dhigan weysay sidoo kale diyaaradaha joojiyay duulimaadka maanta ay ku tagi lahaayeen magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah diyaaradda Egypt Airlines oo iyadu la qorsheynayay inay tagto maanta magaalada Muqdisho halkaasna ay ka soo qaado dad shacab ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wuxuu cadeeyay in uu tagi doono magaalada Laascaanood wararkan bari la soo dhaafay waa la sheegay laakiin ma aysan cadeyn ra'iisul wasaaraha ayaa haatan afkiisa ka cadeeyay waxa uu yiri sida booqashadayada insha Allah aan ku tagi doono magaalada Laascaanood waa mid lagu xoojinayo xiriirka wada shaqeyneed ee maamulka SCC Qaatumo iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ma aha mid wax loogu dhimayo deegaan ama maamul meesha roob ha ahaadee ma aha mid lagu kala fogeynayo dadka Soomaaliyeed ee walaalaha bal waa mid la isugu soo dhaweynayo marka ilaahay ana gaarsiiyo waxaan leeyahay hay'adaha hawsha iska leh ayaa ka sugeynaa iyo qorshaha xilligii loogu talagalay waxaan saacadaynayaa inaan diyaar u nahay dadkeena sharafta leh inaan soo aragno soo salaanno inaan la soo noolaanno diyaar baan u nahay waan uga mahadcelinayaa mar kale niyad wanaagga iyo Soomaalinimada ay noo muujinayaan kaasi wuxuu ahaa hadalka ra'iisul wasaaraha ee uu ku cadeynayay tagitaanka magaalada Laascaanood waxaana halkaasi ka socdaa u diyaar garowga soo dhaweyntiisa waxa uu sheegay in aanay cidna dhibaato ku ahayn maamul Soomaaliyeed inuu halkaasi tago laakiin waxaa jira siyaasiyiin xildhibaano ka soo jeeda Puntland iyo sidoo kale Somaliland oo isku garbaysanaya sidii Xamse Cabdi Barre halkaas u soo tagi lahayd dhankale daawadayaal ninkan odaga ah miskiinka sawirkiisa idin muuqda burada afka uga taala xaaladiisu khatarta caafimaad ay tahay waxa uu istaagay dhalinyaro Soomaaliyeed kadib markii ay ogaadeen dhibka haysta sidii loo caawin lahaa buradaasi loo qali lahaa isbitaal ayaa la soo ballamay lacag ayaa loo arooriyay laakiin dhibka dhacay iyo xaaladda dhalinyarada sakashata ayaa waxa ay tahay dhibanuhu inuu arintaasi iska diiday oo u gambiyay waqtigii ballanta sababta ayaa ilaahay hadda la garanay laakiin dad fahamsan xaaladahan waxay cadeeyeen in ninkan uu la qabsaday in dhibaatada haysata uu dadka in uu weydiisto dadka lacag ku weydiisto oo dhaha caawiya sidaasna lacag lagu siiyo dhalinyarada uu istaagtay oo hor kacayo wariye lagu magacaabo Iimaan Jaama ayaa waxa ay sameeyeen in isbitaalka Shaafi ay la ballamaan baaris lagu sameeyo haddii asaga uu qali karo haddaan la qali karina loo keeno dhaqaatiir ajaanib wax kasta diyaar ayaa loo lahaa laakiin Iimaan oo shaqadaasi waday ballantii markii la gaaray telefoonada uu ka qaban waayay dhibanaha sawirkiisu muuqdo sidoo kale
dad badan ayaa soo baxay oo horey isku dayay ninkan inuu caawiyaan laakiin isla sidaas oo kale uu ku sameeyay arrintan ayaa waxay u muuqanaysaa wax aan la qaadan karin oo qof dhibana xanuunsan caafimaadkiisu khatar ku jiro inuu arko halka il dhaqaale uu ka heli karo inuu sidaas iska ahaado haddaba qof kasta oo ninkan garanaya ama la ah walaal ama fahamsan ama u caqli celi kara waxa habboon inuu u sheego in caafimaadkiisa ay ka muhiimsan tahay dad yar wuxuu ka qaadan lahaa ama wax yar oo la hoostaagi lahaa oo weydiisan lahaa adiga sidee kula muuqataa in qof caafimaadkiisa uu ku bedesho lacaga yar ee loo tuurayo oo dadka weydiisanaya